kulanti wanaagsan daawadayaal waa xulka wararka kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobadan wararkeena ku soo qaadi doono waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay faafahinta dagaal qaraar ee maanta ka dhacay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gado ee Soomaaliya hadaba waxaan idin soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Beled Xaawo wararkeena kalena waxa kamid ah askartii ugu badneed oo isku dhiibay ciidanka wasiir janan ee jooga xiriir UK hadaba muuqaalkan ila daabo waa wasiirkii hore ee amniga Jubbaland ahna taliyaha amniga gobolka Gado oo soo dhaweynaya ciidankii ugu badnaa ee ka soo goosta garabka Axmed Madoobe macluumaadkeena ayaanu ku soo qaadi doonaa salmada waxa idila wadaagi doonaa barnaamijyadii oo si weyn ugu faafay gobolada Gado waxaan idila wadaagi doonaa kacdoonka culus ee Gado ka bilowday ma waxa uu noqon doonaa midkii dadka reer Gado ay ku diidi lahaayeen in Axmed Madoobe uu ka sii arrimiyo guud ahaan Jubbaland waan idin soo gudbin doonaa si gaar ah waxaan u dul istaagi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay dagaalada culus ee Beled Xaawo xaaladda guud ee magaalada sida ay tahay xilligan aan idila hadlayo iyo askarta la sheegay inay ka soo goosatay garabka Axmed Madoobe soo dhawaada saaxiibayaal fadlan daawadayaal saaxiib nagu cusub nagu sabir adigoo subscribe saaran barteen YouTube-ka rukumanaya wararkeena iyo dhacdooyinka xisaalan gobolka ku subayno waa hagaag aan ku bilaawno wararkeena waxaan ku bilaabi doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gado ee Soomaaliya oo maanta oo idil ay ku hoobanayeen hoobiyaashii ugu badnaa waxaa la soo sheegayaa in xaaladda magaaladu ay kacsan tahay qasaarihii ugu badnaa oo dhimasho iyo dhaawac ayaa jiro hadaba waxaa la soo sheegayaa in magaalada goordhow hoobiye ku dhacay uu sababay qasaaro dhimasho iyo dhaawac dad shacab ah siday ku waramayaan wararkii ugu dambeeyay ee magaalada naga soo gaarayo hadaba masjidka la yiraahdo Fatix banaankiisa waxa ku soo dhacay sida wararku ay sheegayaan hoobiye 4 nin oo dhalinyaro ah ayaana ku dhaawacmay waxaana la geeyay cisbitaalka Shifa ee magaalada sidoo kale ganacsade baagsade oo xabadu iftaha ay madaxa ka haleeshay ayaa dhaawac ah oo isna loo gudbiyay magaalada Mandera dagaalkii ka bilowday saake magaalada Beled Xaawo ayaana moodaa in uu markaasi xoogaha ka hor uu yari istaagay walow xaaladda ay wali ay taagan tahay oo xiisad kacsanaana laga soo warinayo magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gado qasaaraha dhaawaca ah ee la xaqiijiyay ayaa intaan ah waxa jiro qasaare kale oo markaasi dhimasho ah oo dagaalkii ka dhashay waxaana ugu badan burbur hantiyadeed oo baaxad leh hoobiyaha ayaa maanta inta badan ku dhacay bartamaha magaalada oo ay isku adeegsanayaan ciidanka xoogga iyo sidoo kale ciidamada ka amar qaata Axmed Madoobe hadaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in xaaladda magaaladu ay kacsan tahay iyadoo ay soconayaan soo barusi ballaaran dhaawacyada ayaa la kala qaadanaya waana sababta gurdhow joojisay dagaalka siday warinayaan wararkii ugu dambeeyay dhinaca kale wasiirkii hore ee amniga Jubbaland ahna taliyaha amniga ee gobolka Gado Cabdirashiid Janan waxa uu soo bandhigay 24 askari oo ka soo goostay garabka Axmed Madoobe muuqaalka raggan oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayo ciidamadii ugu badnaa oo Jubbaland ah oo hal mar isku dhiibay dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina la geeyay taliska xiriir UK dhinaca kale gudoomiye Nasteex ayaa wacd wuxuu ku maray in Axmed Madoobe fikirkiisa uu markaas cid ku shaqeysay aysan joogi doonin gobolka Gado waxaana uu wacd ku maray in gobolka Gado uu noqon doono gobol Axmed Madoobe uu ka caagan dhinaca kale banaanbaxyada magaalada Baardheere waa ay si balaarteen bal ila daawo muuqaalkan oo Baardheere ka imaanaya isaguna
وهجاج مسؤولين الديجان كأيها كهالله أرتاد وكاد وصل وراب وعن كسبنا هاي قبل كجدو جارهان بن العوان كسبنا وإساق معلن حسين دجالك وحوس عذا سيدي أنا عادي الحين دجالدي هرد سيد قدرنا وسعدا ولي أنا ما أقدر لكن يقدر كلامه وحد دجالي إذا ماذا شوفلان iyo kuwa xooga dalka oo la midaysan yihiin Axmed Cid hogaamiso oo Ethiopia qarka u soo gashay wallahi xaaladdu way cakirantahay dagaalka maanta ma labada ciidan oo Soomaalida mise ciidan kala ku biiray waxa ku biiray ciidanka Ethiopia ku biiray ko waxay ahayd in maamul goboleedkii iyo xoogii dalka inay isku dhaceen kadibna Ethiopia ku soo biirtay dagaalka طبعا إثيوبيا واحد كذا قال أنت ضلوا لبها بين كور إما كرم بلد حاول كذا قال ما يسا في عن وين قال ما يان إلا حد روحي كلهم حريوكي أي كلهم حد سيدا الشيء جاي إذا كإثيوبيا يقوى معمول قبلات كويس جرسناي مركب جودها مجاله ولا إسكالب بحي جودها مجاله ولا إسكالب بحي حد حبض وحي كده حريوكي من الأردو 5 كيلومتر وجرت حبض حتى كسرعتها مجاله قارها إنه يجوني قصارها ما أنت دجالك كذا شيء محلنا لو ذاي كرتها قصارها ما أنت كذا شيء سيدا حد أنا أوجهي وحن أفر بمشاء تضبط دعوة أو إسبتالك جودها الله وذي أن دافع عن لغة ربنا أيالين الله وذي تنكاس يحب الدلكنة طبعا يوم زادوا يعني وحلا قاضي دعوة وحلا سكوبي كرماها لكن دجالك ولي متجوكسن وسعدا كل فافين تروح على هلي دونا كل دجالك مركوب جوكسد لكن حتى دعوة والد الدلية ميدن والد الدلة حريوكي يبلد حاوة وحاود حيا مسافة ومجالده ويكدرك سنتهاي مركز دجالك جابته وكسر لما جودها مجالده مسوا الدولات كمجالده دولات كمجالده وحد كسر مجالده اللي سوق علي إذا كنت الدولة ده باللاوي إن أي صوران إذا ما تشوفلان أي صوران والله يهر تجي دجالك حد بلاد حوا بنان كذا لسكو هستايو حريوكي ملودو أو 5 كيلومتر عمل 100 عمل وجرتاي 2 كيلومتر عمل وجرتا ماشي لسكو هستا كابيد waxay ku hayaan ciidamada Jubaland xerada inay tagaan marka qasaaraha dadka rayidka ah maxaa keenay ma gudaha magaalada rasaas soo gaartay hoobiyaal shiike qaar magaalada dhinacan iyo markaad banaanka joogtid oo xeriyuukay aad ka soo tagto xeriyuukay hoobiyaal laga soo gamaa magaalada imaanayo weerar guwanay magaalada qaar way guwanay video call wax waliba waan ka duubnay meelal qaar dad baa ku jira dadkii ayagu way isla gubanayaan xagga rayidka marka maxaa la diiwaan geliyo oo qasaaro ah qasaaro niyo wax soo koobmay ma ahan wax hadda aan sheegi karno toosan ma lahan laakiin waxaan anaga hadda aan bishina aan ku aragnay magaalada gaar ahaan hal dhinac oo dhan waa inay gubanayso dad ha ku jiro ama ay ku jirin way gubanay dadka meel ay isku sheegaan ma jiraan ciidamada dawladda Ethiopia way ku soo biiraan dagaalka dhinacay ka wadaan kolay ilaahay baa noo maqan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka ka barakacay magaalada xagee qabteen shacabka hadda waxay qaar waxay aadayeen doolow dhinaceeda aadayeen qaarna waxay aadayaan waaba ka soo baxayaan ma bilan xawo duuraha iyo meelaha ay aadaan qaarna kaliya xageeda baadeen wax hadda dhaqdhaqaaq jira iyo wax banaanka soo bixi karo hatta qaxi kara ma jiraan albaabada isku xiran qofka dad guriga isku jira gurigiis buu ku dhiman karaa banaan hadduu soo aado asaa isdiray waa gartay marka magaalada gudaheeda laguma socon karo mana la soo bixi karo albaabada isku xiran waxaan rabaa inaan ku weydiiyo labadan ciidan dhinacyada kala hogaaminaya arinta ugu weyn ay isku haystaan oo dadkeena shacabka aad ka war haysaan haddaad macluumaadna la wadaagto maadaama meesha joogto wallahi waxaan ku wadaagi karaa niyo dadka meesha joogaan shacabka iyo kuwa Jubaland baniyo si aad iyo aad weyn waxay ugu soo horjeedaan Cabdirashiid Janan nin kala leeyahay haddii ninkaas magaalada uu ka tago oo magaalada Muqdisho ku laabto dagaalkan in uu nasto waa laga yaabaa laakiin Cabdirashiid Janan oo UK jooga dagaalkan niyo wax oo macnaa oo natiijo keenay malaan Cabdirashiid iyo dawladda waxaan ugu baaqi lahaa inay magaalada gado ay macnaa gacanta ka taagaan ay faraha ka qaadaan meesha dhiig badan baa ku baxaayo oo dhiig shacab ahaado ciidamada ciidan oo isdagaalay waa dad walaalo ah marka niyo kulay
ilaahay baan ka warsugaynaa insha Allah. nolosha dadka shacabka waa sidee dhowr maalmood buu dagaal ka socdaa maadaama magaalada aanay jirin amni oo howlihi ay istaagi karaan xaaladda nolosha bulshada waa sidee maadaama dad tabaalisan bulshada ku jiraan wallahi niyo wanagoon kooba dib iska qabnayo xaggii iyo hawada dowladnimada laga xirayo daawo fiican ay meesha yaalin niyo haddana waxa ku soo kordhay dagaaladan macaluul badan baan dareemaynaa oon kaajo niyo ilaahay hanaga soo qabto hatta isgaarsiintii muhiimta ahayd malahan Safaricom aan isticmaalayna banaanka inaad wax hadda waxaan kula soo hadlayaa meel oo kore aan kula soo hadlayaa si kala hataa kuma heli kartid anteenka marka niyo rafaad baa iska jira niyo macluushan Allah naga bixiyo ilaahay baan dacwadeena u dhiibanaynaa warar baan ku heleynaa xawaaladihii shirkadihii isgaarsiinta shirkadihii korontada bixinayay iyo qaar kale oo badan inay xirmeen marunba waa sax xaqiiqo waa wax shaqeynayo oo hadda bilaa xaabo ka shaqeynayo wax jiro hadda shaqeynayo la taaban kara ma jiraan xabaaladihii iyo wixii isgaarsiintii iyo biyii war korontadii la jaray hadda waxay u socotaa biyaha la jaray buu socotaa oo hadda korontadii wax telefoonada iyo wixii aad jaajarasaleeday nalkii mugdiga lagu jiraabo wixii dhan way jireen marka habeenkii waa magaalada mugdi waa habeenkii magaalada waa mugdi nin socdo hadaad aragto waa nin oo iska taagsanaayo toosh gacmeed wata maan wax magaalada nal oo ka shidan xalayna bilaabatay wax shidan oo hadda isgaarsiin iyo korontadii wax dhan way jiraan ciidamada Jubbaland maadaama intaasi oo adeeg ah magaaladu ka maqan yihiin dadka maxaa u qorshaha marka dadka shacabka maxaa u xal ah wallahi hadda dadka markaan bulshadii aan dhaxgalay aan macnaha raali ahaan waxay leeyihiin dagaalka hal mar haduu joogsado waan ka baxaynaa dhankaan Kenya aadina galayna xagaasna uma baxayna Kenya galayna magali aan u doonaynaa inaan hadda caruur badan oo la laayay hadda jiraan oo meel lagu dabeeyana ay lahayn xabadana aydan istaagin ilmo dhaawac ah niyo waa la isku rafaadsan yahay hadda aan ku hadlaayo hadda hortayda waxa lagu wadaa wiil oo hadda dhaawac la wadaa adaan u jeedaa sidii wax ata wax joogsada ma jiraan maanta waxa la arkaya goobo uuro ay ka bixisay oo la soo duubay baraha bulshada iyo warbaahintu ay heshay muuqaaladaas meelahaasi gubtay maxaa kamid ah maxay ahaayeen meelaha gubtay waxa waaye meelaha oo ganacsiga iyo sida guri iyo hanti meelay taalay iyo meel baqaaro oo raashin iyo waxyaabahaas ku jireen waxa gubtay waa meelahaas marka hubba ku dhacay hubba madaafiica ku dhacday sida bishika iyo bakaamka hubka noocyadiisa kala duwan isku adeegsado sida shabaabkii camal isku dagaalama waayahay ciidamada Kenya maadaama ay balad xaaway Mandheera daris yihiin oo xuduudka Kenya ay balad xaw aad ugu dhowdahay ama gobolka waqooyi bari ee gumeysi ugu dareen Kenya ciidamada jooga oo kale miyaanay door ku leeyahay arimahan oo Kenya miyaanay soo faragelinin maya Kenya shaqo kuma lahan Kenya waxay taagan tahay wax magangeliyo oo ciidamada dawladda xooga dalka iyo kuwa Jubbaland wax magangeliyo loo imaan karo ma jiraan ilaa man shacab aan ka ahayn qof qoray haasta inta soo galo waan direynaa taas bay ay leeyihiin ciidamada Kenya wax oo hadda fariigelin ay magaalada oo gala ay ka wadaan ma jiraan Kenya laakiin Ethiopia fariigelin ku wada marka Kenya amaanka xuduudkeeda adkeysatay ciidamada badan ay soo dhoobtay maanta waxay keeneen 16 oo baabuur oo Kenyan arkayo oo xuduudda la soo dhoobay ciidan lagu soo diray ee ka shaqeynayaan oo xuduud imaanayaan oo ciidan keenayaan way isdiyaarinayaan xuduudda xirnaysa maan wax shaqo ku leeyihiin baan dagaalkan kuwan Cabdirashiid Jaran uu hogaaminayo hadii ay raacdo in laga adkaado marka halkay u bixi karaan maadaama Kenya xuduudkeedii xiratay sidaad sheegtay wallahi niyo horta waxay ku jiraan mashaqay ku jiraan hadii dhinacyahan afarta madax loogu imaado waa dad aan dhulka aqoonin dadaan maanta aan meesha u dhalanin baa ku jiro Cabdirashiid naftiisa halis ku jirto marka dhankaas Kenya ma aadi karo Kenya waxay dhahan wax anaga magangeliyo noo imaan kara ma jiraan midka hadoo magangeliyo doonay dalkiisana ha joogo inuu soo talaabin hadoo noo soo talaabana sidii daraad ma dhicayse waan iska celinaynaa maadaama xaaladaas adag ay meesha ka taagan tahay ciidamadan Cabdirashiid Jaran uu hogaaminayo ayaga xagee lagu daweeyaa ilaan xire UK ma ahan xire u diyaarsan goob dhisma iyo sidoo kale adeegyo leh marka xagee ku daweeyaan ciidankoodu ciidanka waxay ku daweeyaan qaar oo shalay la soo qaaday jiraan magaalada Muqdisho la soo qaaday la kabkan uu soo qaaday dhaqtar oo waxa jooga dhaawacyo fudud oo xire UK dhaxdiis ku daaweeyo jiraan
qaarna markay dhaawaca u irsaadeen shalay helicopter lagu daabulay lagu qaaday dhaawaca iyo wixii dhimasho waa gartay ugu dambeyn maxay tahay fariinta dirayso fariinta aan dirayo waxa waaye niyow meesha wax ku dagaalamayo waa dad walaalo ah waa dad hal meel ah meeshii ay macnaa dadkan nabadgudka iskaga celin lahaayeen ayaga maanta isdhaawacaya isdilaya marka waxaan ugu baaqi lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh inuu nin madax iska dhigo oo dalkan si nabadgelyo iyo nidaam u maamulo Xamsa Cabdi Baran waxaan aniga fariin aan u dirin lahay waa dadka isdilay waa dad walaalo ah niyo meeshan arintan soo farageli Cabdirashiid Janan meesha laga saaro idinka u aabiyeelayo shacabkiina Soomaaliyeed idinka u aabiyeelayo waxaan leeyahay madaxweynaha dagaalkan jooji warkeena idil waa naga inta arrinta wax dhisay qaybta hoose faado dadweynaha nagu